shalay toole waxaa dhacay wax fool xun ku dhacay tuuladan haddii aan la kuuranaya hulka cid baa timiday maryaha imika si odayaashu ciidankaa sita darees ciidan sita anse u malaynay annaku ciddaana gashay inay samaroon tahay baan u malaynay waxaan leenahay yuusuf gaab iyo madaxweyne ku-xigeenku waad ku guulaysatay waxba aad waday guul baad doonaysay wixii aad waday waad ku guulaysatay tuulo iska nabad qabta tuulo aan cid weerarin tuulo rayida intoo la soo dhex gala iyo dhashiike iyo siikaawi iyo biikaam iyo wixii la haystay waa lala dhacay ilaahay baa badbaadiyey waxaa Soomaalidu waxay tiraahdaa kol dagane alla dagay laba goor daganana isaga istagay shalay haddaad igu dagtay oo tiri xabad waa joojina jooji atili la ii soo adeegsaday ciidankii militariga wax shaarkiisii leh anu ma ahan lehe dib uma dhigayo waa wixii alla inoo kala gooyo kuwii xabad joojinta ku dhawaaqay dadka islaynaya kala joojinayna laha ayay hawshaasi ka timid uma arkayno dad dhexdhexaadiya iyo dad mas'uuliyad qaado uma aragno shalay laga bilaabo waanu ka gacmaha shalay ka laabanay sida odayaashu sheegay ragna uma naawaan hubna uma naaway bari ka maalin haduu waxaasi yimaado waa wixii alla noo kala gooyo yaxnuugow haddaa soo dirtood yuusuf tiga wax amar oo abu khaliifaha haddii alla kuu runaya masiibada samaroona aad tiri war waan dirayaa nabad ku dhawaaq war nabad ima haya kaas waa wixii alla inoo kala gooyo cabdiraxmaan ciro marka hore uguma uu talagelin baan u maleynayaa goboladan inuu nabad ka rido uguma uu talagelay cabdiraxmaan ciro waayo hadduu inuu ka rido ugu talagalay dadka beelahaas haya ka dhaxabu u soo diri lahaa uma soo dirin beelihiisa iyo in ka mida intii madaafaqada u xun iyo dabka u xun kiciisay buu soo diray alxamdulillaah ilaahay baa mahad leh halkan maanta waxaan ka cabaaraynaynaa dhacdadii foosha xun lahayd ee shalay dhacday aniga oo magacaygu yahay Ibraahim Nuur Ducaale ahna odayaashii beeshan uqaashii beesha weeye waxa saa u dadbanay shalay toole waxaa dhacay wax fool xun ku dhacay tuuladan haddii aan la kuuranaya hulka cid baa timiday maryaha imika si odayaashu ciidankaa sita darees ciidan sita anse u malaynay annaku ciddaana gashay inay samaroon tahay baan u malaynay waxaan leenahay yuusuf gaab iyo madaxweyne ku-xigeenku waad ku guulaysatay waxba aad waday guul baad doonaysay wixii aad waday waad ku guulaysatay maxas iyo carruur weliba badhkood halkan hulka dad soo barakacay oo halka yimiday baa jira dadkii soo barakacay iyo dadkii hore yaallay ayaa shalay haddana laga daba yimiday in la sii barakaciyaa la doonay waayo uqaal baa ku dhawaaqday xabad joojinta waa la qaatay wixii la hayay haddii alla kuu roon yahay dee meel baa la iska dhigto waa la xeraystay haddii la xeraystay shalay xabad baa ka bilaamatay halka dhashiikaha biikaamka aakeega faalka nuuca uu qoryahaba uu ka dhacay waad aragteen aqalladu inay wada daloolaan waad aragteen xabaddii ku dhacday waxaasi maaha dowladnimo maaha ficil dad shacaba loo adeegsado maaha waan ka xunnahay cid baa soo diratay ku soo ridle tidhi annaku maanta annaka oo salaamayna beesha ciise weyne iyo aabba ugaas baaq dheer waxaan diraynaa waar wixii la sheegaya waxba kama jiraan waxaa Soomaalidu waxay tiraahdaa kol dagane alla dagay laba goor daganana isaga istagay shalay haddaad igu dagtay oo tiri xabad waa joojina jooji atili la ii soo adeegsaday ciidankii militariga wax shaarkiisii leh anu ma ahan lehe dib uma dhigayo waa wixii alla inoo kala gooyo taa waxaan u sheegayaa dawladda Soomaaliland waa qodob ma yeelo kolka digtay baan carruurtaada la dhici
shalay toole uma rag waayin uma aan qori waayin laakiin waxbaan canaynay waruuxu malaha waa dawladdiiba mase ahayn qodob waa qodobka kale dawladdu kolka nabad la dhisayo nabad kolka la waxaynayo malaha dhakada mooyaan si ay tahay ma garanayaan anigu maskaxdani nabad kolka la waxaynayo dee nabadaa la dhigaayo cuqaal baa loo yeedhaayo war adu maxaad ka dagaalantay adna maxaad ku dagaalantay baa la yidhaha dadkaa le nabada gacantaa la isku saaraa kabacdi baa la yidhaaha waar waxaa qaramayn baan samaynaynaa jabhadihii la isku soo ururiyey waarnimaa nabadba laga dhex ridin oon waxba haddii aan gacan la isku saarin oo wuxuu ka dagaalamay iyo wuxuu ku dagaalamay midna aan la weydiin oon gacan la isku leeyahay waa la qaramaynayaa war qarankaasi kii kale halkan uu xabadda haysta anna xaggan haysta waan qaramaynayaan waa waxaas ma suura gasho ummadda in la wada hadliyaa fiican in ummadda la wada hadashiyo ayaa qurux badan u qarsiimaan u aragnaa loo qarinayo reerka ciise weliba wayna qaramaynayaan nabad baa waxaasi ma jiro nabadi ma taalo waryaa mar hadday sidan u dhaqayso nabad la qaadanayo maxasta iyo carruurta iyo dumarka lagu laynayo oo ninka geela raacay kolkii laga tegey hulka ee laga dhargeel laga fulay ayaa dhexdaa lagu helay si odayaashu sheegeen inamadii geela la joogay kuwiiba indhaha laga xidhay ul baa lagu tumay waa yaallaa imika waa jiifaa cid tidhi waar muxuu qabaana weli ma hayno cid tidhi muxuu qabaa ninkaasina ma jirto waxuu ma jiro waxaa lagu farxayaa allabagaan mid ka dille dib laygu farxi maayo qaadanna mayno gaaxnuugow haddaa soo dirtood yuusuf tigay wax amar oo abu khaliifaha haddii alla kuu runaya masiibada samaroonna aad tidhi waar waan dirayaa nabad ku dhawaaq war nabadii ma haya kaas waa wixii alla inoo kala gooyo markay halkaa joogto ciisena baaq waxaan u dirayaa iyaan lagu hodin ma jirto nabadi ma jirto waa ninkaa xabadda kula dhacaya waa ninkaa ila dhacaya waa ninkaa adiga kula dhacaya kaa weeyaan bahda ciise weyne dhammaanteed dhegta ha taagto hana diyaargalowdo waxa weeye dawladda Soomaaliland xabad joojinta iyada ku dhawaaqday marka ay ku dhawaaqday cidihii amba nabad loo marayay amba xabad joojin loo marayay marka horeba dariiqeega lama marin waan arkaynay cidda aan isaynay ayay haddii alla yidhaaha hormuud uga dhigtay hadday maamul leedahay iyo hadday mijo leedahayba haddii nabad la samaynayo amba xabad joojin la samaynayo dadka ishaya dadan hayn ayaa dhexeeyaha noqda ma noqon ujeeddo halkaa daarra waxaa shalay nagu dhacay daarran bay ahayd tiina waan aragnay tii nuucaay ahaydeen marka horeba arkaynena waan aragnay weerar baana galay Soomaaliland baa yeelatay dadkaa hulka yaalla oo wax qorisita sida odayaashu sheegeen iyo wax dagaalamay midna aan lahayn ayaa weerar ku bilowday hubkii ay wadatay nuuc kastuu haana guryaha iyo xaafadaha la dhacday inta markay ka fusheen dadkii xoolaha la joogay ayay dooxa ugu tagtay xoolihiisa eegalay oo indhaha laga xidhxidhay oo qoryaha dabadooda lala dhacay waxa weeyaan oo ku dhaawaca waxaabaa shalay halka ka dhacay si mas'uuliyadeed ma ahayn si dawladeed ma ahayn si dadnimo ku jirtana ma ahayn Soomaaliland bay ka timid kuwii xabad joojinta ku dhawaaqay dadka islaynaya kala joojinayna laha ayay hawshaasi ka timid uma arkayno dad dhexdhexaadiya iyo dad mas'uuliyad qaado uma aragno shalay laga bilaabo waanu ka gacmaha shalay ka laabanay sida odayaashu sheegeen ragna uma naawaan hubna uma naaway bari ka maalin haduu waxaasi yimaado waa wixii alla noo kala gooyo waa wixii alla noo kala gooyo ciisana waxaan leenahay yaan lagu dagin ka sara joogso indha dheer ka lahaw hawsha horta saaka waa subax nabad ku barinay waxaan ahay tuulada hulka waxaanu ka hadlaynaa duul shalay la soo diray oo maryo cawlaa oo la lagu yiri dawlad bay ahaayeen
ما هي كواس الدولة كوا عيد اسكو سو توسيها العيد مريع او الله سو خيلو عيد اسكو سو توسيها هاي هو الشلي لو يمدي tuulo iska nabad qabta tuulo aan cid weerarin tuulo rayida intoo la soo dhaxgalay iyo dashiike iyo siikaawi iyo biikaam iyo wixii la haystay wala la dhacay ilaahay baa badbaadiyay ilaahay uu baa badbaadiyay waxaanu leenahay haddaan nahay anagu qabiilka ciise kuwii la yidhi baan hayn lama arag arlada dawladda dul oo muursada بالحر أوانها كنا عم الجوية كل يجري عليه دولة كل رجل بالله ما أنت وانا قال دولة صومالي أنا قال وحبك كويسين واحد ماسك قبل على أنا كويس دبع بيتفايف ما أنا نقصي يا دولة الصومالي وسيري يبر يا نقصي يا دولة دن الصومالي نتاعها هو أنا نقل الوادي سنة adeeg ayay ku filan yihiin kuwa maaha wax loogu filan anagoo sidaa haddana ayidsanay dawladda Soomaaliya oo ishidahay dhowr iyo 30 sano ishi hayaabo ilaahay waxaa dhacday dadkagii sidaa ahaa anagoo dalkayagii la sheegtay degmooyinkaanu dhalanay sayl ciyal haya weliga yaba ilaalayaal ku ahaa waldagta ku sida jirnay oo hablaha iyagu dhali jireen والله سكاي جد جري أنا أقول لك كيس جد جري لكن كيس أنا أقول الخوست كوي سجل أقول لك يلا ما قال له هاجري أم بدل أسواق وصلناها أم بالبقى قبيلة ولا لا لكن كيس كلام الأحرار ده اسمه مراد هاي كيس راها أي الله شيء تلوك هاي إيوه سيلا أنا على وحوك عيني كاس دول يصدق السنة الصومال اللي جوت أيوة ما لحالتوس عرب الحشية أنت واجد واجد كلو تلنجري يالكو سماحون يجي بورسي وكو هنجري حشية كامل سكت دفاعي على دولة دوح عذر وماله على كالصومال لا يبل هوسجو ولي جيبه والو هيالاني أنا أقول أحبك كويس كيف على دبعينا لو بتجيه وأنا بضايقنا وأحبك بجيته وقبيل لو بتجينا يعني قبيل لو بتجينا يعني هذا لو بتجينا محمد سيد يدي لو لينيا والكوي جال اللي جوجا وشيا عاقد يا بردل سيتي الدوحية مرة خريجة جالس جوجا دين ترى قال واجي فاهمك لكن جال اللي جوجي شاك جفاد هالك جوكت جفاد يسجل هذا بلوك جوكت دور هالسري هو يا محل يقول لي هو بردول لو بتجينا يلا هذا الدولة اللي جبتها سيدا أقول لك صبالا dadkii ay naga laysay iyo maatida iyadii ajeeday waa in masabkeegii helo hadda weynahayn wixii hal loo kala guuyo dawladda Soomaaliland oo marka hore Cabdiraxmaan Ciro marka hore uguma uu talagalay baarlamaanka goboladan inuu nabad ka rido uu talagalay Cabdiraxmaan Ciro waayo hadduu inuu ka rido uu talagalay dadka ay beelaha isaya ka dhaxab u soo diri lahaa وما صدرين بيلي ساي كميدا انتي مرافقده وحن iyo dabka wuxuu kiciisay uu soo diray dabka wuxuu intii soo kiciisay iyo soo diray haduu intii soo diray intiina waxay loo soo dirtay dadan garaweyne inuu jabhadii aan dagaalaynaba uu yahay iyo inuu dawladii yahay laakiin shaarkii dawladda xula bal noo soo diray hadina noo soo dirayna cagta la mariyay dadka cagta la mariyay meel ay jabhadi joogto ma ahayn jabhadna ma ahayn dadkii magaalada ee shicibka ahaa iyo cagta la mariyay oo hubka kiisa culus loo adeegsaday hubka kiisa culus baa loo adeegsaday waliba ka yar iyo kiisa culus baa loo adeegsaday ka gaariyaasha saaran kuwa geela la jooga ee barada dhulka wadooyinka maraya waa la qabto iyagana digita laga dhigo waa dhaawac dadkaasi dad jabhada ma ahayn hadalkii dawladda iyo nabadii ay tiri waan qaadanay hubka waan dhignay annagu halka iska joognaan loo yimiday maatidaas loo dulbaray halka shalay dib foolxun ayuu dadka maryaha dawladda sita ayuu loo geystay annagu garan mayno kii jabhada hay uu maryahan u soo galiyo inay tahay wali waa kala garan laanahay iyo waxaan ima kala isku geynay
inay kii caaligii oo maryahan loo soo geliyay ay tahay ninkaan sayno oo maryahan loo soo geliyay inay tahay ayaan imanka iskugu geynay waayo hadalku wuxuu ahaa guryaha la dhigo ahaa guryihiina waa la dhigay wax qoryo haystana uma yimin wax qori ku ridana uma yimin wax qori haystana uma yimin waxay ugu tala galeen ayay hayd waxa dhibtaasi ka dhacday annagu waxaan u malaynay in kii uun samiiskana noogu soo geliyo oo nagu adeegsaday baan iyaan qabnaa dowladda Somaliland wax jira haday tahay oo taa hortii horeba dee inay nabad ka rida ugu tala gashay ayna hayn dee gasabkeygii si toos ah nagu timaado ana siis